wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu shaacinayay musharaxiinta Aadan Xaaji Xuseen Maxamed oo u tartamaya golaha deegaanka degmada Burco iyo Cabdilaahi Saalax Cali oo sidoo kale u tartamaya golaha wakiilada gobolka Togdheer oo ka sharaxan xisbiga kulmiye. salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradkii soo xulay labadan musharax ayaa sheegay inay isku raaceen musharax Aadan Xaaji Xuseen iyo Cabdilaahi Saalax Cali. waxaanu leenahay naga guudooma labada musharax ee aanu soo xulay waa musharax Cabdilaahi Saalax Cali iyo musharax oo u sharaxan golaha wakiilada iyo musharax Aadan Xaaji Xuseen Maxamed Mire oo ka sharaxan golaha deegaanka. waanu garab taaganahay hil iyo waba la garab taaganahay idinna sidoo kale aanu filaynaa reer Sambuur iyo reer Dood ayaa afkoodii ku hadlaya labadaba ayaa reer isku tashaday u midoobay waxyaabo fara badan siyaasaddu ka tahay anigoo ku hadlaya waanu idin mahadcelinaynaa cid kastoo soo ajiibtay waanu soo xulay waan hareeraanu iska taagnay shilin iyo qodaxba waanu ka soo dhamaynay xisbiguna wuu nala qaatay waanu geynay aad iyo aadna way maatay waxaa ka mid ah xildhibaanadii sugayay inay golaha wakiilada qabtaan waxaan u tanaasulay Cabdilaahi Saalax Cali waa gabar jecel waxaanu leenahay isu tanaasula si caayidun u soo baxdaan xafladan aanu ku shaacinayno labada murashax ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka aanu u soo xulay aanu ku shaacinayno dadka reer Togdheer iyo kuwa gobolada kale ka yimiba waa idin soo dhawaynaynaa. labada musharax ee aanu keenay halkan horta mar waa u hambaliyaynaynaa booskaan u soo dooranay waana ilaahayna waa ka rajaynaynaa in ilaahay ku guuleeyo. waa udub cusub oo aan hore u dhicin baanu caawad meeshan madashan jooga waxa weeye waa Sambuur iyo reer Dood oo mataana ahaayoo kala lusanaayoo ishelay oo walqashoodii insha Allah dhaween aanu samaynayno bidnillaahi kariim. dadka kala hara ee la kala reebo ee isu tanaasula dadkaas qiimeeyay waxa weeye nin tirsaday waa garanaya halku gaarayo kula dardaarmaya beeraha soo sharaxay inay garab taagnaadaan isdiiwaangeliyaan codka aanay la kala harin rag iyo dumarba. ilaahay inuu guuleeyo labada musharax ayaan ilaahay ka rajaynaynaa. waa idinku hambaliyaynaynaa runtii midnimada iyo is-afgaradka iyo wanaagga aad samayseen iyo kalsoonidaba aad iyo aad baan idinku hambaliyaynaynaa. haddeer labada xildhibaan waxa u yaalaana waa duco iyo dardaaran hambalyadu iyagoo u dambaynaysa waa markay soo baxaan midnimada ay labadan beelood sameeyeen iyo taageerada oo ah doorashadii labada arrimood marka ay israacaan ee labada kelmadood la isku daro waxay dhalisaa guul. waxa wax walba ka mudan midowdeed waa idinku hambaliyaynaynaa. mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer wasiir hore Cali Mareexaan iyo wasiirada wasaaradaha macdanta iyo tamarta iyo xiriirka golayaasha iyo dastuurka ayaa soo dhaweeyay labadan musharax iyagoona sheegay in xisbiga kulmiye qaatay. waxaan halkan si mug iyo miisaan leh aan uga soo dhaweynaynaa haddaanu nahay xisbiga xaakimka kulmiye murashax baarlamaan Cabdilaahi Saalax iyo murashax golo deegaan Aadan Xuseen oo aanu saaxiib nahay. runtii labadan deegaan ee uu jaamac yiri waxaan u bixinay doodsan ama sandood anaguna ka xisbi ahaan sandood ahaan baanu idinkula shaqayn doonaa. waxaan u hambaliyaynayaa musharaxiinta labadan beelood ay soo saareen oo si midaysan ay isugu soo raaceen. waxaan kale oo u hambaliyaynayaa musharaxiintii u tanaasushay oo halkan qaarkood ay ka hadleen labada beelood waa budbigii xisbigan iminka maanta halkan aynu isugu nimi. labada musharax ee horteena fadhiya Cabdilaahi Saalax Cali iyo Aadan Xuseen Maxamed labada musharaxba waa laba mas'uul
oo gobolkan togdheer magac iyo maamuus ku leh waxa dhammaanteen bar sharaf iyo wanaag inoo ah inaynu soo karaamayno oo ka soo qayb galno labadan musharax una ducayno taageerno tabantaabino ilaa iyo intay ka gaadhayaan halkii ay ugu talagalay waa siyaasadda xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland in lagu dadaalo deegaanadu inay u soo xushaan golayaasha qaranka dadka ugu habboon musharax aadan xaaji xuseen iyo musharax cabdilaahi saalax ayaa u mahadnaqay cid kasta oo ku taageertay hankooda siyaasadeed waan idin mahadnaqaya waana karaamaysan ilaahay ha idin shafro dhammaantiinba waxaan idin ballan qaadaynaa kolay anigu waan idin ballan qaadayaa in aan haddii alba ku rooyahay halkii layga soo doortay iyo guud ahaan degmada Burcaba aan wax badan ku celin doono tadaarankii odayaasha salaadiinta madaxda meesha ka hadashay ay nala dardaarmeenna ilaahay ha nagu duwo anigu caawa halkaa waxaan ka ballan qaadayaa dadaal iyo daacadnimo dadaaladayda inaan ku daro xildhibaanada gobolka Togdheer inaan mideeyo oo waayeelu noqo mahad cali goodir Ariel TV Burco